madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 54 cisho kadib xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble oo muddo ahaan heesta 143 maalmood oo ka dhiman waqti xileedka dowladda. warqadda magacaabista ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa Rooble loogu rajeeyay inuu ka soo baxayo howlaha horyaala oo ay ugu weyn tahay agaasinka doorashada dalka ee shalay heshiiska laga gaaray. haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee xalay la magacaabay Maxamed Xuseen Rooble waa injineer ku dhashay magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug bishii Oktoobar 1963 waana 57 sano jir waana aabe dhalay 5 caruura. waxbarashada aasaasiga ah waxa uu ku soo qaatay magaalada Muqdisho waxa uu fursad u helay jaamacadda ummadda isaga oo ka daraaseeyay kuliyadda injineerinka oo uu ka qalin jebiyay sanadkii 1990 sanad ka hor burburkii dawladii kacaanka. dagaaladii sokeeye markii uu dalka galay waxa uu ka mid noqday shakhsiyaadkii dalka isaga baxay isaga oo saldhigtay waddanka Sweden oo uu ka heesto dhalashada labaad. Maxamed Xuseen Rooble oo haatan magacaaban ayaa haddii codka kalsoonida uu ka helo golaha shacabka waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii 20aad. dhanka kale waa ra'iisul wasaarihii labaad ee muddo xileedka madaxweyne Farmaajo uu magacaabay. sanadkii 2000 ayuu jaamacad ku taala magaalada Stockholm ka qaatay shahaadada heerka labaad ee master degree. wixii xilligaasi ka dambeeyay dalka ayuu dib ugu soo laabtay isagoo ka soo shaqeeyay wadamada Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. sida ku cad warqadda sooyaalkiisa waxa uu Maxamed Xuseen Rooble ku hadlaa 5 luuqadood oo kala ah Soomaali, Ingiriis, Swedish, Carabi iyo Talyaani. waana nin aqoon u leh xaaladda dalka. Rooble waa nin aan horey loogu aqoon arrimaha siyaasadda balse waxa uu kaashanaya waayo aragnimada waayo jooggiisa dalka iyo arrimaha horumarinta oo uu ka soo shaqeeyay. maxaa horyaala ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble ayaa haddii uu helo kalsoonida golaha shacabka baarlamaanka waxaa laga sugayaa in uu jiheeyo doorashada lagu heshiiyey soo dhisidda shax wasiire ah ku-xigeeno iyo wasiir dowlayaal kala gudbi kara mawjadaha siyaasadeed ee ka horgudban. Rooble waxa uu heystaa 143 maalmood oo ka dhiman muddo xileedka dastuuriga ah ee madaxtooyada oo ah halka laga magacaabay waxaana ka horeeya waqti sharciyeedka baarlamaanka oo ku siman dhamaadka sanadkan 2020. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa qoraal uu soo dhigay barihiisa xiriirka bulshada waxa uu u hambaliyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee haatan sugaya codka kalsoonida injineer Maxamed Xuseen Rooble.